هلا والله يا أهل اليوتيوب وين سلام نمانتين كسر وهذا channel كي هذا لكم كحسبتين مقاعي وعبد القني هذه تايمر كاي كوجوري سنة سبعة سبسكرايب نصر هذا فيديو كيشن لايك نصر نواجه عادي شناد iyo barnaamijkii shanaad su'aalahan ku weydiinayna shacab weynaha degmada Walweyn qof alla qofkii su'aasha ka jawaaban oo ku muteysanay awaal marin marka su'aalaha maanta inta badan waxaad moodaa waxa ay quseeyaan ama ay la xiriiraan degmada Walweyn barnaamijkana waxa taabgelinay mid kamid ah bakhaarada cabitaanada ugu waaweyn ee ku yaala degmada Walweyn ibnu Cabdalla ee uu horkacayo Abdi Fataax Shaabe aad iyo aad u mahadsan yahay insha Allah marka barnaamijyadan kuwii ka horeeyay afarta meel fiican gaarsiiseen oo maxaa la si fiican u shirgareyseen midkaan waxa rajeynaa meel fiican ina gaarsiin doonta insha Allah ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta hana iloobina fiidiyoga ina shirgareysaan Abbas marka hore ku soo dhaw barnaamijkan sida u aragtaa waa maasantahay barnaamijkan waa barnaamij fiican oo macna dhaxgalka bulshada waaye waa runtii wax dhib ah kama qabno su'aalaha maanta diyaar u tahay wax walba su'aalaha ay weydiisay diyaaran waa waxa ay sheegtaa tuulo kamid ah tuulooyinka degmada Walweyn oo xuduud la leh 4 gobol tuulooyinka degmada Walweyn ee xuduud la leh oo ka tirsan xuduud la leh 4 gobol waxa kamid ah Balad Aamin hadii jaanis la wadan ku sii intaas waaye ana wax kale kuma hay oo jaaniskii ugu dambeeyay waa ma santahay su'aashan ku weydiinay sax maaha برنامج كم أدي هذا الفيلم سؤالك ديار أنت والله أنتي تورتي كده ذلك ما إن شاء الله تولو كمية تولو يمكن تكمل ولا وين أو مقاش لمت مت كمية عاصمة أدونك عاصمة أدونك إيه مقاش هذه لفيري يو ودن أو عاصمة ديس أو هذه لفيري اسمه إيه أو دكمة ولا وين مياه تولو كمية هواي تولو كمية مياه تولو كمية لما ولا حد لنا هذا كرت أم أسمع معكم أسمع معكم ومر لوقت جانس يا تقولكم متى ما بجرت إلى لما تميل بشي ما عاصمة أسمع معك والله ودكتي معنا ديك مهندس هذا إيله ويكون نورمال هذي اللي معنا ده حياة هذا ما سنت محمد مركور كسودو برنامج كان سؤال ويدينتا شعبنا دقمده Walweyn برنامج كان سيده واركتا ما شاء الله برنامج كان سفيلي ان قدويه برنامج كان من ارغانه انتي هرمر اسك سو زيادي دقمده اول بنان اي ku fiirsan jirnay su'aalahan sida dadka liin weydiiyo hadina ma sha Allah degmadii ba ku socota aad iyo aad kaga mahadnagaan su'aalo geeg diyaarangeed insha Allah iska dayad ilayda ma in sheegaasee tuul kumid ah tuulooyinka degmada Walweyn oo xuduud la leh tuulo kamid ah tuulooyinka degmada Walweyn oo xuduud la leh 4 gobol iyo xuduud leh waan hal tuulo waay hadii aan iska dayo ma inagadaasee tuulada haaka hadii aan jaanis loo wada ku siiyo jaanis lama tadii aad siido oo tan hadii saxan ay hadaan tuulo kumid ah 4 gobol hoos ku yaaswa Usman jaaniskii dambe kaale jaaniskii dambe siyaasa tuulo kumid ah 4 gobol hoos ku yaaswa afar gobol hoos ku yaaswa afar gobol xuduud soohin alle tama درس haddii aan iska dayo may nagadaasee buur tuulo ciidamada darwiishta sayid maxamed cabdulle xasan sanadka iyo bishii ay yimaadeen degmada Walweyn ما نقطعي بشي لحد سنة 1960 كسجل بقول إله لك سيدكم من الله إلى سهل جد مقعد بالله برنامج كان سيدا واركتا بسم الله وقلوا هاي مقعيقنا محمد حسن عثمان برنامج كان وبرنامج رنتي هذه قيم بدن وبشهد واحد بدن كسو كردين هاي وأقون وأرقني من الله كرسنا هاي رنتي هذا أنا قلوا سؤال ما تدياروته هذه waxa ay sheegtaa mid kamid ah culimadii Soomaaliyeed ee muxaadarada jeedisay xilligu noolaa siyad bare su'aashaas hadii aan isku dayo waxaan dhihi lahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan aad iyo aad u maasan tahay su'aashan ku weydiinay waa saxday waxaad ku guuleysatay $1 oo shirkadda Hormuud aad iyo aad u maasan tahay
waxaan u malaynayaa si fiican inaad u soo daawateen barnaamijkan horta barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijkii shanaad ee su'aalaha aan ku weydiinayna shacabweynaha degmada Wallaweyn barnaamijkan waxaa taabagelinayay bakhaarka cabitaanada ugu weyn ee degmada Wallaweyn ku yaalo maxaa la yiraahdaa ibnu Cabdalla uu markaasi maamul ka yahay Aftax Shaabi aad iyo aad u mahadsan yahay aad iyo aadna waa kaga mahadcelinaynaa sidoo kale ganacsatada degmada Wallaweyn iyagana waxaan rajaynaynaa barnaamijyada kala dhiman dambe in iyagana ku dhiiran doonaan in markaasi iyagana barnaamijkan dhinac ama qayb ay ka qaataan waxaan barnaamijka soo dhaxgalay waxay tahay barnaamijka galabta sidoo kale waxaa jirto qayb anaga naga halowday qaybtaas hadda waxaan rabnaa inaan idin tusino laakiinse gebi ahaanba cod ma lahan sidaa ogtihiin wiigan yani isbuuca ka horeeyay waxaa nagu dhacday in codkii uusan microphone-ku duubin marka tanna waxaa nagu dhacday codkii oo dhan marka shanqar ma lahan marka dadkaasina si aanan iyagu noo eedin oo noo dhihin maxaa noo soo qaadan weysay xitaa waxaa ku jiro dad qayb ka mid ah dadkaasi oo su'aalaha saxay marka dadkaasi maadaama codkooda uusan duumin kama tegi karno marka dadkii jawaabaha saxay waa kuwan bal daawada iyagana dhammaan dadkaasi aad soo aragteen wajiyadooda aad soo aragteen waxay ka mid ahaayeen dadkii saxay su'aalaha helayna jawaabihii saxda ahaa waxayna ku guuleysteen abaalmarintii marka ciladu dhankeenay ahayd marka waxaan rajaynayaa idinkana inaad ka raali ahaataan sidoo kale waxaa jiray dad iyaga ka mid ah aan anagu su'aalo weydiinay iyagana yani isku dayay laakiin aanan jawaabta helin iyagana waa kuwan bal daawada sida waxayaha jiirka wadanahay beerka albulaas waraabsha wadana jacayl sida waxayaha jiirka iskasta aadaba oo kumaasantii daawashada muuqaalkan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii barnaamijkan kan iyo kuwii ka horeeyayba ee xitaa taabageliyey ee ku dhiiraday aad iyo aad u mahadsan yihiin aad Fatax Shaabi isagana maanta barnaamijkan taabagelinaya isagana waxaan leeyahay brother aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan dad kale oo dhiman waxaan rajaynayaa in iyaguna ay ka qayb qaadan doonaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan qof walba oo fiidiyoyadan yani oo channelka ka baxo share gareeya haba u badnaadaan qurbo joogta sidoo kale dadka degmada ama meelo kale oo joogana iyagana barnaamijyadeena share gareeya aad iyo aad u mahadsantiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cameramanka barnaamijyadan quruxda badan aad aragtay mar walba inoo duubo Xuseen Maxamed Macalin oo loo yaqaan Xuseen Moos waxaan leeyahay brother aad iyo aad u mahadsantahay marka sidaas iyo nabadgelyo